kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay kulamo siyaasadeed aan ka farxin filla Soomaaliya oo xalay ka dhacay Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Roble oo ku biiray wada hadallada mucaaradka iyo maamul goboleedyada. maxaa ka soo baxay kulan saacado qaatay oo dhex maray midowga murashaxiinta maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble. maamul goboleedyada oo ogolaaday in wax kabada lagu sameeyo habraacyadii ay soo saareen kadib cabasho ay muujiyeen mucaaradka iyo guddi loo saaray arrintaasi. wararkan kalena waxaa kamid ah dowladda federaalka oo Muqdisho ka soo dejisay saraakiishii ugu badneed oo laga keenay gobolka Gedo iyo filla Soomaaliya oo bilowday in ay kala furfurto saraakiishii taabacsaneed wasiirkii hore ee amniga Jubbaland ee Cabdirashiid Janan iyo wararkii ugu dambeeyay Al-Shabaab oo weerar culus saaki kula kalahday magaalada Camaara oo dhawaan ay qabsadeen militariga Soomaaliya. qaraxyo halkaasi ka dhacay iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana subax talaadaha 24 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaadada booliiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane. fadlan ala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. xalayto ilaa shalay waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhacay kulamo gaargaar ah oo ay siyaabooyin kala duwan u yeelanayeen madaxda dalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee xilka ee madaxtinimo raadinaya sanadka 2021. kulamadii ugu cuslaa waxa ay dhex mareen midowga murashaxiinta iyo maamul goboleedyada dalka, iyada oo shalay galab ay magaalada Muqdisho gaar ahaan hotel ku yaala gudaha aeroboortka Muqdisho ay ku kulmeen maamul goboleedyada shanta ah iyo midowga murashaxiinta. dood dheer iyo falanqeyn kadib waxa isla garteen in shirka uu ka soo qayb galo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. kulankaas ayaa sidoo kale waxa uu ka dhacay hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay hogaamiyaha Galmudug ee Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, iyadoona madaxda golaha wada tashiga qaran ay markaasi si toos ah u qaabileen maamul goboleedyada waa midowga murashaxiinta Soomaaliya. kulankaasi ayaa ahaa kii ugu cuslaa ee xalayta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo labada dhinacna ay si toos ah isku weedaarsadeen fikradahooda kala duwan ee ku saabsan in wax kabada lagu sameeyo habraacyadii ay soo saareen madaxda golaha wada tashiga qaran oo cabasho xoog leh ay ka muujiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah gaar ahaan walaha midowga murashaxiinta. kulankii hore ee dhex maray maamul goboleedyada iyo midowga murashaxiinta ayaa si aad ah la isugu soo hadal qaaday arrinta ku saabsan in markaasi wax kabada lagu sameeyo habraacyadii ay soo saareen golaha wada tashiga qaran, balse xubno ka tirsan shanta madaxweyne maamul goboleed ayaa arrintaasi ka cagijiiday. balse markii dambe ayaa la isla gartay inuu shirka ku soo biiro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble si arrimo badan oo quseeya xaaladda dalka wax looga weydiiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maadaama isagu uu hormuud u yahay howlaha doorashada ee wadanka. haddaba maamul goboleedyada ayaa waxay ogolaadeen in wax kabada lagu sameeyo habraacyadii ay soo saareen kadib cabasho ay muujiyeen mucaaradka, iyada oo guddi loo xil saaray ee arrintaasi islamarkaana la filayo in maanta mar kale kulamo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa ogolaaday in laga wada hadlo qodobada ay cabashada iyo diidmada ka keeneen midowga murashaxiinta ee ahaa habraaci doorashada golaha shacabka ee ay Muqdisho markaasi ku soo saareen madaxda golaha wada tashiga qaran kadib 2 maalmood oo shir uga socday caasimadda. kulamo shalay ilaa iyo xalayto murashaxiinta iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada si kala gaargaar u yeesheen ayaa waxa ay labada dhinac magacaabeen guddi min 3 xubnood ah si turxaan bixin loogu sameeyo qodobada qaar ee ku xusnaa habraaca sida arrinta soo xulidda ee ergada ee odayaasha dhaqanka, kaalinta bulshada rayidka iyo arrinta hubinta ergada ee hay-adda dambi baarista CID-da iyo khidmadaha ee tartamayaasha iyo ergada. arrintaasi oo walaac xoog leh ay ka muujinayeen siyaasiyiinta ee mucaaradka ah ee midowga murashaxiinta iyagu ku jira. maanta ayay shir isugu imaan doonaan sida la filayo guddi min 3 xubnood ah oo labada dhinac markaasi ka kala socda, waxaana la sheegay in midowga murashaxiinta ay matali doonaan
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan, iyo weliba sidoo kale daahir maxamuud geelle wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya. halka dhinaca maamul goboleedyada ama madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay matali doonaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo isagu arintani markaasi garwadeen ka ah maadaama uu isku keenay midowga murashaxiinta ra-iisul wasaaraha iyo weliba sidoo kale maamul goboleedyada shanta ah ee dalka ka jira. waxaa la filayaa in maanta ay ku dhawaaqaan guddigaasi min 3 xubnood ah ee ka kala socda labada dhinac qorshaha ay ku wajihi doonaan doorashada habraaceeda lasoo saaray ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ah ee Soomaaliya. si kastaba haatee xaalka wadanka ayaa waxa uu yahay mid xasaasi ah iyada oo weli aan xal rasmi ah laga gaarin doorashada dalka ka dhacaysa ee golaha shacabka iyo weliba sidoo kale midda kale ee madaxweynaha, maadaama waqtiga weli uu sii jiitamayo. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waqtigiisa waxa uu dhacay 8 February ee bishii labaad ee sanadkan 2021, halka bishii 8aad imika sii dhamaanayso. waxaana madaxweyne farmaajo uu dalka haatan isaga oo waqtigiisu dhacay sii joogaa wax kasii badnaanayso ilaa iyo 6 bilood. ilaa iyo haddana ma jirto ififaalo doorashada hore loogu wadayo, maadaama markasta ay soo ifbaxayaan cabashooyin kala duwan oo laga qabo doorashada wadanka ka dhacaysa. ra-iisul wasaare Roble ayaase u tafaxaydan in uu arrimahaas oo idil xal ka gaaro. xaalka ayaa waxa uu yahay weli mid cakiran sida muuqata, maadaama arrinta Somaliland weli khilaaf uu ka jiro. maamulka Hirshabelle ayay sidoo kale xiisado waaweyn kasoo cusboonaanayaan, halka arrinta gobolka Gado aysan weli si rasmi ah meel u dhicin, maadaama madaxweyne Axmed Madoobe uusan weli ku qanacsanayn waxa ka soconaya gobolkaasi Gado. haddaba wararka kusoo kordha arrimaha doorashada iyo kulanka la filayo inay maanta Muqdisho isugu yimaadaan gudiyada min 3 xubnood ee ka kala socda midowga murashaxiinta iyo maamul goboleedyada, waxyaaba ay soo saaraan wararkeena kale ayaan kusoo gudbin doonaa. isha ku haya channelka Warqad TV oo subscribe ha idin haado, muuqaaladana sii share gareeya. barnaamijka qaybihiisii dambe ayaynu isla soo gaarnay. haatanna aynu fiirino arrimo la xiriira dowladda federaalk ah ee Soomaaliya oo saraakiil ciidan ka keentay gobolka Gado. xogo lagu kalsoonaan karo oo aynu helnay ayaa waxay sheegayaan in dowladda federaalk ay magaalada Muqdisho keentay saraakiishii hogaaminaysay ciidamada Cabdirashiid Janar. saraakiisha Muqdisho la keenay ayaa waxaa kamid ah Rashiid Bool, Cali Xasan Deer iyo saraakiil kale, waxaana tiradooda lagu sheegay 16 sarkaal oo muhiim u ahaa howlgalka Cabdirashiid Janar. saraakiishan oo laga soo dejiyay garoonka aadan cadde ayaa lagu xeeriyay amaba lagu dhoobay xeerada la yiraahdo Nacnac, waxaana la sheegay in dhowaan u bilaaban doonto tababaro saraakiilnimo sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo ka tirsan militariga Soomaaliya. saraakiishan laga soo dejiyay Muqdisho ayaa la sheegay inay kasoo baxaan amaba ay kusoo baxaan amar uu Muqdisho ka bixiyay madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waxaana sidoo kale la filayaa in ay la kulmaan dhowaan saraakiishaasi. wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa hore heshiis ula galay dowladda Soomaaliya, inkastoo uu maalmo ka hor uu kasoo muuqday dhinaca mucaaradka isagoo sheegay inuu yahay murashax xildhibaan kana tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ah ee Soomaaliya. xogaha ayaa waxay sheegayaan in khilaaf soo kala dhex galay Villa Soomaaliya iyo wasiir Janan uu sabab u ahaa in uu ka baxsado Villa Soomaaliya oo ku haysay cadaadis aad u fara badan, isla markaana uu aado dhinaca mucaaradka. khilaafka ayaa la sheegay inuu ka dhashay ballanqaadyo loo sameeyay wasiir Janan oo markii dambe ay uga baxday dowladda federaalk ah ee Soomaaliya sida xoguhu ay tilmaamayeen. ugu dambeyntiina al-shabaab ayaa weerar qaraxiyo ku bilowday waxa ay saakadii hore ku qaaday magaalada Camaara ee gobolka Mudug. wararka laga helay koonfurta gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in saake waa berigii al-shabaab weerar ku bilowday qaraxiyo ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ku leeyihiin deegaanka Camaara ee gobolkaasi Mudug. dadka deegaanka ayaa ku warramay in dagaal xooggan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu ka dhacay deegaanka Camaara, kaas oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo dhinaca iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab.
saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka qeybta 12aad ayaa sheegay inay khasaaro xoogan gaarsiiyeen al-shabaabkii kusoo duulay magaalada Camaara ayna soo bandhigi doonaan. dhinaca al-shabaab ayaa warar ay ku qoreen baraha ay ku leeyihiin internetka waxay ku sheegeen in ay la wareegeen deegaanka Camaara, sidoo kalena dagaalkii dhacay ay ku qabsadeen gaadiid dagaal. magaalada Camaara ee gobolka Mudug ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta ee Galmudug ay dhowaan kula wareegeen howlgallo ay ka sameeyeen gobolkaasi Mudug. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeenii saakay. tan iyo warkan war lamid ah intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad.